Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan waxaan kuu rajeynaa inay maalin qurux badan kuu tahay waxaad mar kale ku soo dhawaataa barteeda youtube-ka aad iyo aad ayaad uga mahadcelinayaa sida aad muuqaalada u daawanaysaan misena aad u subscribe garaynaysaan muuqaalkeena maanta wuu ka duwan yahay muuqaaladii hore oo aan kaga hadlaynay xirfadaha iyo shaqooyinka side-hustle-ka iyo qofka dhalinyarada sida wax ku qabsan karo maanta muuqaalkeyga waxaan rabaa in aan idinkula wadaago talooyin waxtar u leh qofka dhalinyaro markuu yahay dabcan talooyinkan waxaa laga yaabaa in aad ka maqashay qof saaxiiba ama qof waalidku ah inaad ka maqashay sidoo kalena aad ka daawaday youtube-ka ama meelo kale markaa muuqaalada lagu baahiyo talooyinkan dab ahaantii waxaan isdhahay waa talooyin qofka markuu dhalinyaro yahay u baahan yahay inuu qabsado ama inuu qaato talooyinkan waxaan hubaa haddii aad qaadatid aad maaragtay sida aan kuugu sheegaya aad maaragtay u samaysid dabcan inay kuu noqdaan talooyin markaasi waxtarka u leh hadduu ilaahay ka raali noqdo talooyinka sidoodaba waa talo wanaagsan iyo talo aan wanaagsanayn marka talooyinka wanaagsan ee mar walba qofka wax ka bedeli karaa haddii lagula wadaago waa in markaasi haddii aad kari kartid ama aad awoodid inaad taladaas qaadatid haddii aadan rabin markaasi inaad iska dhaaftid talooyinka aan wanaagsanayn dabcan waan ognahay in qof si kale wax uu kugu sheego ama talo aan wanaagsaneyn uu ku siiyo inta talo ula tagtay marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago ilaa iyo 6 talo oo maaragtay aan isdhihi karo qofka dhalinyarada maanta uu u baahan yahay talada koowaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay haddii aad dhalinyaro tahay in aad rabbigaada ku xirnaatid taladeeda ugu horeysa aan ku siinaya waxay tahay inaad rabbigaada ku xirnaatid oo maaragtay ilaahay wuxuu ku faray maaragtay aad samaysid wuxuu kaa reebayna maaragtay aad ka reebtantid si marka rabbigaad ugu xirnaatid waa inaad hagaajisaa salaadaada iyo soonkaaga iyo weliba maxaa la yidhaahdaa la dhaqanka dadka iyo bulshada iyo weliba inaad akhlaaqiyaadkaagana maaragtay aad wanaajisid iyo dabeecadahaaga iyo markaasi dadkaad kula macaamilaysa inaad wanaajisid markaad rabbigaaga raaligelisid waxaa jira 2 qofood oo ilaahay ka sokowaad maanta koonkan inaad saarnaato sabab uu ahaa 2da qofoodna waa waalidkaaga u noqo qof baariya waalidkaaga u noqo qof ixtiraama qof baariya qof warkooda iyo taladooda iyo siday wax u rabaan maaragtay sameeya waayo dadkan kale waad isla simantihiin laakiin 2daa qofood iyo wixii kale waalidku ah ee ka soo uskama waalidiintaada ama la dhashay talooyinkooda iyo ixtiraamkooda iyo waxaasoo dhan inaad maaragtay aad qaadatid inaad waalidkaaga baari u noqotane waa mid adduunya aakhira ku anfacaysa adduunyada intaad joogtid ilmahaad dhashay caruurtaad dhashay ayaa maaragtay booskii waalidkaada u buuxisay kuu buuxinaya oo markaasi kuu noqonaya caruur baariya waxaad waalidkaada ku samaysayna buridda kugu samayn doona hadduu ilaahay ka raali noqo marka waalidkaaga baari u noqo talada labaad ee aan raba inaan kula wadaago waxay tahay nolosha waa yoolal iyo ahdaaf la dhigto haddaad dhalinyaro tahay samayso yoolal samayso ahdaaf samayso dhigo waxyaabo aad rabtid in ay yoolal kuu noqdaan ee aad ka guul gaartid samayso way ku anfacayaan haddii aadan yool lahayn ama hadaf aadan nolosha ka lahayn waad iska noolaanaysaa subax haddii ilaahay uu nabad kugu soo kiciyo inaad sidaada caadiga aad foofto howlahaaga iyo waxaaga iska qabsatid habeenkii inaad seexatid subaxeeda kalena meeshii aad ka bilowdid laakiin yoolalka aad degsatay ha noqdaano yoolal naftaada wax u taraya yoolal ku horumarinaya yoolal maaragtay wax badan kaa bedelaya
Yoolalka haddii aan si kale kuu fahansiiyo, waa in aad leedahay wax aad rabtid inaad ka guul gaartid. Dabcan waxaad rabtaa inaad gaari iibsatid, waa yool, waa hadaf. Hadafkaaga wuxuu yahay inaad gaari iibsatid. Waxaad rabtaa inaad guursatid, waa yool. Marka waa in yoolal aad samaysatid. Inaad wax baratid aad rabtaa, inaad sanadka soo socdo jaamacad bilowdid aad rabtaa, waa in yoolalkaasi aad samaysatid. Nolosha haddaysan yool kuu lahayn, waa iska noolaanaysaa. Marka samayso yoolal samayso. Yoolal yaryar oo aad yoolalka waaweyn aad ku gaari kartid samayso. Way ku anfacaysaa. Talada saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago waa talo aan isdhihi karo wax badan ee naftaada ka beddelaysaa. Waa inaad akhlaaqiyaadkaada ka shaqaysid. Akhlaaqdaada waa inaad ka shaqaysid. Qofkaad tahay waxa sawir ka bixinaya oo soo koobaya akhlaaqdaada. Maanta heer dadku waxay marayaan markuu hadlo qofka ay gartaan qofka wuxuu yahay. Akhlaaqiyaadkiisa inuu wanaagsan yahay, inuu qof xun yahay, inuu qof wanaagsan yahay, inuu qof la macaamili karaan uu yahay, isla markiiba waa la fahmayaa. Marka akhlaaqiyaadkaada ka shaqeey. Sidaad u koraysid akhlaaqiyaadkaadana u kori oo ka shaqaysii oo ha noqonin qof akhlaaqiyaadkiisa aanan wanaagsanayn, qof wuxuu doono iska sheega, qof IQ ahaan ama caqli ahaan markaasi xoogaa si wax ay ka yihiin ay dadka aysan kuugu malaynin. Marka akhlaaqiyaadkaada ka shaqeey. Hadallada wanaagsan ee naxariista leh, ixtiraamka, xushmadda, hadallada jilicsan ee dadka u dhimrinaya, dadka soo jiidanaya, waxaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan akhlaaqiyaadkaaga. Akhlaaqiyaadkaaga waa CV-gaaga. Haddaan kuu soo koobo, waa CV-gaaga. Dabcan maanta haddii aad shirkad shaqo u doonatid, waxaad la hortagaysaa CV-gaaga. Waxaad soo qabtay kan. Dabcan sax. Waxaad ka sheekaynaysaa shaqooyinkaad soo qabatay, waxaad ku wanaagsan tahay, dabeecadahaaga ka sheekaynaysaa. Laakiin akhlaaqiyaadku waa CV-ga aad bulshada kula nooshahay. Anaa runta kuu sheegayo, sax. Akhlaaqdaada hadday wanaagsan tahay, qof walbaa iska kaa jeclaanaya, qof walbaa ku ixtiraamaya, qof walba madax ku saaranayo. Dadkaaga way badanayaan. Asxaab fiican waad samaysanaysaa, bulsho fiican waad samaysanaysaa. Marka ku dadaal inaad ka shaqaysid akhlaaqiyaadkaaga. Ha iloobin, waa midda ugu muhiimsan aan isdhihi karo. Ha iloobin inaad akhlaaqiyaadkaada ka shaqaysid. Qodobka ama afraad aan rabo inaan kula wadaago, aqoon ahaan isdhis. Aqoon ahaan isdhis. Isxooji. Wax baro. Raadi xirfado cusub. Bara xirfado cusub. Baro kuwa maadiga, kuwa diiniga baro. Qof qalbiga ka dhisan noqo. Dadku aqoonta waayaha way ka waaye aragsan yihiin. Dadka kale way ka waaye aragsan yihiin. Marka ku dadaal inaad dhistid aqoontaada. Update ku samee. Wax baro. Maalin walba wax baro. Ha joojinin waxbarashada. Shakhsiyaddaada ayay qeexaysaa inaad tahay qof aqoon leh. Shakhsiyaddaada ayay qeexaysaa. Laakiin markaadan aqoon lahayn ee aadan isdhisin, dabcan heerkaaga wuu hooseynayaa. Marka si qof heerkiisa sarreeya ee akhlaaqiyaadkiisa wanaajiya, rabbigiisa ku xirnaantiisa u ixsaan fala, baari wax inaad noqotid. Marka ka shaqeey intaa. Qodobka lixaad ee aan rabo inaan kugula wadaago waxay tahay talooyinka. Qodobka lixaad ee talada lixaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay jimicsi iyo wax akhris. Labadaas samee. Jirkaaga caafimaadkiisa ka shaqee. Jimicso. Murugo, stress, cabsi, inaad si u diiqaysan tahay, aadan niyad ahaan wanaagsanayn, waxaasoo dhan waad isdaynaysaan. Inaad jimicsiga bilowdid, inaad jirkaada dhidid ka soo saartid, dhididka ka saartid, ka fikirtid caafimaad qabka jirkaaga.
jimicsi samee. Maskaxda kuu soo hartay, maskaxda waxaa kobciya ee dhisa waxa la yidhaahdo wax akhriska. Wax akhriska maskaxda sida biraha iyo maxaa la yidhaahdaa meelaha laga boodboodayo iyo jirka caafimaad uu u siiyo. Wax akhriskana maskaxda caafimaadkiisa waa wax akhriska ayay caafimaad u siisaa. Sida jirkiga jimicsiga ugu baahan yahay ayay maskaxduna wax akhriska ugu baahan tahay. Marka haddaad dhalinyaro tahay, yoolalkaaga ku darso. Ku darso jadwalkaaga maalinlaha. Ha seexanin adigoona jimicsi samaynin, adigoona wax akhrin ha seexanin. 10 bug akhri maalintii. Maalintii 30 daqiiqo oo keliya jiimka tag. Waad dareemaysaa qof koraya kobcaya inaad tahay waad dareemaysaa. Jir ahaan iyo maskax ahaanba. Fikirkaaga wanaagsanaanaya, adduun araggaaga isbedelaya. Maxaa la yidhaahdaa waxaad baranaysaa waxyaabo markaasi innaba aan caadi ahayn. Waa inaad aqoonta wax akhriska ku imaataa saaxiib. Inaad wax akhriso maanta muhiimay tahay. 24 saacadood ayaa haystaa, 12 saacadood ama 8 saacadood ka mid ah waa seexataa. Marka ma weynaysid 30 daqiiqo inaad wax ku akhrisid. Joogtay, quraanka joogtay, buugaag soo iibso, maktabadaha tag, librariyada tag, akhri saaxiib. Anaa runta kuu sheegayo. Waa inaad ku xisaabtantaa bishii inta dhowr buugaad akhrisay. Waa inaad sanadkii aad qeexi karto inta buugaad akhrisay. Jiimkaagana waa inuu joogto ahaadaa saaxiib. Ku dadaal marka. Talada ugu dambaysa ee aan rabo in aan ku soo gabagabeeyo muuqaalkeena, saaxiibo wanaagsan samayso. Saaxiibo wanaagsan samayso. Waa waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo in dadka isdhexgalka dadka aad markaas uu qayb ka yahay saaxiibada. Saaxiibkaaga maanta heer waxa la marayaa la yidhaahdaa saaxiibkaaga i tusi qofkaataan kuu sheegay. Saaxiibkaaga i tusi qofkaataan kuu sheegay. Dabcan u fiirso saaxiibadaad la socotid si fiican u fiiri. Ma yihiin saaxiibo aqoon ahaan dhisan. Ma yihiin saaxiibo kaala sheekaysanaya ganacsiga, horumarinta. Ma yihiin saaxiibo kugu wadaya maktabadaha. Ma yihiin saaxiibo ku dhahaya nakeen saaxiib waqtigii salaada la joogaa nakeen. Ma yihiin waa saaxiibada wanaagsan. Intaa wixii ka soo hara waa saaxiibo kale. Anaguna kuwa ka hadli mayno. Marka saaxiib waxaad ku dadaashaa inaad saaxiibo wanaagsan dhisatid. Saaxiibo wanaagsan isku hareeri. Dhinacyadaada ka fiiri, saaxiibo wanaagsan ka fiiri. Iska ilow waxaan kale, saaxiibadan kale ee meela fadhiga, ee meela bicna darada, ee qabyaaladda, kubadda iska ciyaaraya, is-aflagaadeynaya, aqoon ahaan liita, mustaqbal aan lahayn oo horumar ka fikiraynin oo sanadkii hore meeshuu taagnaa taagan, ha la saaxiibin. Haddaad rabtid inaad isbeddel samaysid, dhinacyadaada saaxiibo wanaagsan ha laga arko. Inaad raali geliso saaxiibadaada waxaa ka wanaagsan inaad naftaada raali geliso. Anaa runta kuu sheegay. Inaad naftaada raali gelisid ayaa ka wanaagsan. In lagu yidhaahdo wuu ka dhex baxay dadka, in lagu yidhaahdo waxaa ka wanaagsan in aad dantaada uga dhex baxin. Qasab baan inaad dadka ku dhex jirtid aadan waxba ka faa'iideynin, laakiin waxaa qasab ah inaad dadkaas ka dhex bixdid si aad horumar u gaartid. Marka qofna ha ku raali gelinin. Waqtigaada ka faa'iideyso, noloshaada hormari, xirfadahaaga dhis, jirkaaga jimicsi u samay, wax akhriso, xiriiro wanaagsan, dad wanaagsan la samayso, noloshaada horumaray gaaraysaa. Sanadba sanad ka dambeeya horumar ayaad ku tallaabsanaysaa. Laakiin qof dib kuu dhigaya ha la saaxiibin. Ha la saaxiibin saaxiibkay aan runta kuu sheegay. Xaqiiqada weeye. Isdhinac mara. Qasab maahan inaad maanta dhan aad la socotid saaxiibaan waxba ku tarayn. Marka saaxiib naftaada ku dadaal. Talooyinkaas ayaa jeclaysta inaan kula wadaago. Waxaan rajeynayaa inay talooyin waxtar kuula ay noqon doonaan. Haddii aad halkan soo gaarto waxaan kaa codsanayaa muuqaalkeedii la wadaagta asxaabtaada. Barteeda YouTube-kana aad ku soo biirtid
wixii faalla ah qaybta hoose ay igu reebtid waana kaaga mahadcelinayaa inaad muuqaalkan soo dooratay waa inoo muuqaalka xiga sidaa iyo nabadgelyo